waxaan ballan qaadayaa kaagaasime ahaan wixii aan awoodo oo biyo ah inaan degmooyinkaas oo dhan gaarsiiyo jeebkayga oo aan ahayn xukuumadda soo maray magaalada dhan intaa la keligaa ku haray keligaa soo gay dadku kici kari waayay abaar bahan baa ka jirta waxa ka daran biyo la'aan baad la'aanta waxa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta yaanana waxaanu sii buulasha la idinka gubayaa oo ka tay kari weyn oo iska carar lahayn la xulooba yaaliin meel cidlaa dadka wixii guuri karayay waxa weeye arigaabo yeelalo moose u kala jabeen dad waxa weeye dadkii waxba deerari kari waayay baa yaala waa aragtaan meesha aanu joogno annaga iyo caruuro iyo maato baan ku noolahay imikana de haraad bay leeyl dareeyeen iyo de magaraysaa wax wixii la quudan jiray xaaladdu waa iska arkaysaan safarku waceliyow geesta kalena waa gurmad degdeg oo ku wajahan qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolada Sanaag iyo Sool waa socdaal daboolaya murugada adkaanta iyo baahida ka dhalatay abaarta ba'an ee ku habsatay deegaanada Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga abaartaasi ayaana saameysay nolosha dadka iyo midda duunyada agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Axmed Saki Maxamuud Jaamac ayaa isagoo ka duulaya qayladhaanta ba'an ee ka soo yeedhaysa deegaanada uu ka soo jeedo waxa uu safar galay maalmo uu ku tegay dhul ballaadhan oo ku teelsan gobolada Sool iyo Sanaag agaasimaha iyo wafdigiisa howlo shaqo u joogay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa halkaasi uga gudbay dhabaha loo maro dhulka ay abaartu ay saameysay socdaalkaasi waxa uu ahaa mid isugu jira galab carro boqol maalinimo jarmaado iyo sidoo kale guragal habeenimo intii uu safarkaasi socdayna waxay luhay qabanayeen raadadka muuqda ee abaartu ay sababtay iyadoona raad ku yeelatay dadka iyo duunyada waxaana caruurta halkaasi ku nool ay la dala dhacaysa oonka ay abaartu ay sababtay waayeelkana wajiyadooda waxa laga dheehanayaa baahida abaarta hooyooyinka ayaa geesta kale la tacaalaya nolosha ubadka iyo sidoo kale midda duunyada oo qarka u saaran dhimasho maadaama aanay jirin biyo iyo baad لكن بيا معان وحيار عدا وحن كوب بينه وجرا عيل ما بلا حد بيا حتى عاد كلام بيقدر أنا فاكر وكسوي واجد محايرة ضيّي مركا عيلاشان أنا جو بيا قارو دونه من بيا معانا هاي سنة در بيا قال لكن magaalada dhan intaa la keligaa ku haray كل سوي agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland deegaanada uu safarka qayladhaanta ku tagay isla markaasina cagta dhigay waxa ka mid ah deegaanka Siigadheer Bohol Soodhe Daraweyne Godwaraabaha iyo Ceegaag intii uu halkaasi ku sugnaana waxa uu halkaasi warbixino kala duwan uu kaga dhageystay dadka deegaanka isagoona mid ula fadhiistay halka uu qaar kalena ugu tagay guryahooda si uu ugu kuurgala xaaladda dhabta ah waxaana uu ka xog waraystay baahiyaha ay ugu mudan yihiin biyaha baadka caafimaadka iyo sidoo kale nolol maalmeedka waa laga hayaamay dhulkan aanu joogno waxa looga hayaamay doog la'aan iyo biyo la'aan dadka wax yaroo hadiisana kici waayay unba meesha ku soo haray waxaad moodaa markay sidaa tahay intay kici weyday dar bay kici weyday baahida ay qabtaana ma yara ama baad la'aan ha noqoto ama biyo la'aan ha noqoto ama baahi dad oo dee xagga ganaysa ha noqoto sida loo kala markii horeba loo kala liitay ee dadku kala liitay dayacayaa lama ma yara baahiyaha ka jira waxa weeye biyaha ugu daran baadkuna dee waa ku xigaa agaasimaha caafimaadka iyo xildhibaanka degmada Ceelif Weyn waa noo yimaadeen
baahiyaadka ayay naga wareysanayaan haddii waxa weeye baahiyaadkay u socdeen asaasiga sida u sii warbixiyaan dadka abaaruhu saameeyeen ay uga war helaan waa noo yimaadeen way nala joogaan anana waa war siinay indhahoodana way ku arkaan waxa weeye tuuladu waa tuulo laga hayaamo laga guuray dhulka roob waxtar goor ugu dambeysay lama yaqaan abaarta Soomaaliland badideeda haysada way tanaa uun la mid tahay ama ka sii xun tahayba dadkii maajoorati wixii ka cinkari way hayaabeen zona ceer gaabaya bay galeen iyo buur bay ka duuleen waxna galbeed iyo xaaji saalax iyo way qaar wixii qabteen iyo Itoobiya dadku badan maajoorati ka cinkari waa xoolaha jilicsan iyo kharashka fara badan ee aan dadku aanu awoodin dadku waa kici kari waaye abaar bahan baa ka jirta waxa ka daran biyo la'aan baad la'aanta waxa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta biyo la'aantu dad iyo dunyaba waa haysaa biyo iyo baad dadku waa jilicsan yahay wuxuu yidhi dee aanba faydna waxba ay farin mar haddaa idinkii dhulkii soo marteen siina maraysaan halkana haddeer caawa nala joogtaana ay darar weyne tahay dee horta waxba idin fari mayno waa indhihiinnaa ku aragtaan dhulka kolley waa agaasimadaa yaroo waxaanu jecel lahay agaasimayaashii hore ee kule wasaaradda caafimaadka ilaa iyo Somaliland 32 sannadood ay jirtay agaasimo caafimaad oo degmada Darweyn yimaada waa kow aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo waftigiisa 100% waa nin degmada u dhashay waa nin danaynaya waa nin u damqanaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqay noo kowdii in dhaweyd cid dawladda Soomaaliland ka socoto oo degmada noogu timaadaba waaba noo kow agaasime marka adiga alxamdulillah aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa deegaan badan baa soo marteen duruufaha yaala baa talna yaala Darweyn wax yara dheertay de meel lagu kala maqnaabay ahaydo dhawaan la isugu yimiyo adeegyadii oo dhan baa baabay wadanku waa abaarta waa afar naq xoolo weel biyo ma gelin naqna kama diin juleeceedu sida loo kala waxaysan yahay dadna waa duruufiyankii buu la ildaran yahay waa laga yaabaa ku hadday doonaan siladee weli xoolihaaso inta ayaa galaysiiyaana cunno kale oo dhulkaa ka sarraysa saad u soo marteen weeye ka wafdi ahaan waxaanu soo marnay jiid dheer iminkana xilligaas oo ay sideedii tahay waxaanu is leenahay jiid dheer sii mar haddii ilaahay dhaho nagama dhowa waxaan ugu talagalnay inaan u kuurgalno xaaladda nololeed ee abaarta ka jirta gobolka Sanaag intaaba runtii inaan u kuurgalno in badan waan soo marnay insha Allah inta kalena waanu mari doonaa biyaha ilaahay biyaan ahayn oo inu ku dhargeynaa ma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta naga jabiyo xoolaheeniyo oo aad ogtiin halkay kala joogaan oo 300 kiiloomitir meel inoo jirto Ethiopia dhinac ka gasha Somaliland la dhaafo ina Nuur Muuse shishadeeda gobolka Jarar ee Ethiopia ay dadkeeni joogaan oo xogaal baan wax qaarna buuraha si jeedkooda ergaabo shidan iyo wixii u dhow ayaynu afka ku sii haynaa meeshaan soo marnay wax xoolaanu ku soo aragnay way yaraayeen riyo yar oo meelaha qaar laga guuray iyo geel halaw badan baanu arkaynaa ilaa maanta shakhsi ahaan aniga ku hadlay magaca xukuumadda caawa halkan joogta waxaan qaadayaa fariintiina ujeedada ugu weyn aan soo baxnay waxa ay fariinta
xoolihii hadday naga maqan yihiin biyo cuntadii baa noogu daran waxaan ballan qaadayaa kaagaasime ahaan wixii aan awoodo oo biyo ah inaan degmooyinkaas oo dhan gaarsiiyo jeebkayga oo aan ahayn xukuumadda soo marin oo shakhsi ah haddii ilaahay idhaahdo anagu maatadaasaanu nahay xoolii way naga hayaameen xuduudkay tageen buuraha bari bay ka dhaceen dee waa aragtaan meeshaanu joogno annaga iyo carruuro iyo maatoba aanu ku nool nahay cidina nama weheliso toban dumara iyo carruurahoodii baanu ku joognaa xoolina waa ka hayaameen bari iyo xaggaas u hayaameen meeshu waa abaar dee annana waxaanu isni buulashaa laydinka gubayaa oo ka tegi kari weyne waaba iska carar lahayni laxo nooma yaaliini meel cidla ah dadkii waxay u kala hayaameen qaar gobollada bari bay u hayaameen gobolka Sanaag qaybtiisa bari ilaa iyo bay socdeen sijeedka buuraha waxaana tagay maatooyinkii iyo xoolihii qayb ka mid ah sidaas kale si la mid ah qaybna waxay dadkii u hayaantay galbeed oo waxay socdeen ilaa iyo gobolka Jareer ee Itoobiya socdeen aagana ha ugu sii daraado darar weyne ilaa iyo cirifkan wixii laga gala xaggana bohol kaga jooga ilaa iyo Barcadaba leh wadanka abaartaas ka dhacday muddo 2 sanadooda roob kama deyn ta warin dhaadhaama xaaladdeedu say tahay way ku muuqataa runtii sanadkii hore laga hayaamay iyada halka magaalooyinka kale laga hayaamay hadda iyada sanadkii hore laga hayaamay in dhaweyd baneef xoolahay aageeda ma joogin 7 bilood ka hor maraan nimi inta maatada abaa joogtay ceelka waxa ugu dambeysay sanadkii hore in laga cabo marka iyada hayaanku hadda uu ka horeeyay hayaanka ku dhacay shoodhe anigu dadkii ka hayaamay baan ahay xoolaha ka hayay iminkaana soo galay waa arkaysaan dumarradii iyo carruuriyuun baa jooga awalaha waxay ahayd oomane biyo ma lahayn biyo ilad baa looga soo dhaamin jiray iminkana dee haraad bayba la ildaran yihiin iyo dee magaraysaa de wixii la quudan jirayba xaaladdu waa arkaysaan waad aragtaan abaaraha ka dhacay maato iyo carruur baa lagaga tegey dadkii joogi jiray iyo haddii alla kuuna yahay xoolihii waddanka dee lagu haystayba waa ka tageen abaar baa looga hayaamay safarkani waxaa indhayn iyo inaan u kuurgallo xaaladda dhabta si wax looga qaban karo marka xaaladda marka laga warhayo dhibaatada ka jirta ayuunbaa dee la taaban karaa wixii laga qabanayana ma biyay u baahan tahay ma baad bay u baahan tahay duruufehe baa ku gadaaman marka safarkani maanta waa safar dheer oo aan ku marayno deegaankan oo dhan jiidan oo dhan abaartu ka jirto insha allah biidnillahi kariim si dhaqsaa baahiyaha koobaad oo naga soo jawaabi doonaa inaad biyahaba si degdeg u heshaan wixii cuntadaana insha Allah waxna waa wax naga tan badan wixii awoodeenna si degdeg aan idin soo gaarsiin doonaa hadii Ilaahay idhaahdo safarkan ma noqon mid ku kooban hadal iyo indhaydheen kaliya balse agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland isagoo ka jawaabaya codsiyadii iyo baahiyihii hore loogu soo gudbiyay waxa uu bilaabay gurmad degdeg ah isla markaasina ah mid biyadhaan ah isagoona deegaanada hoos yimaada gobollada Sool iyo Sanaag gaarsiiyay 36 booyadood oo biyo ah si ay u daboolaan oonka iyo baahida dadka ay abaartu ay saamaysay biyadhaamintaasina waxa uu ka kala diray magaalada Ceelafweyn iyadoona uu kala diray 24 deegaan oo ku yaala bariga koonfurta iyo waqooyiga deegaanada Ceelafweyn iyo Sool safarkan gurmadka waxa uu ahaa fariin muujinaysa in dawladdu ay garab taagan tahay muwaadiniinteeda gaar ahaan markay dhibaatadu ay ku habsato wuxuu ka warbixiyay dhulka uu soo maray ee abaartu ay ka jirto sidaad qarashada iyo aragga uu soo arkay wuxuu ka dhalatay inuu deeq biyo ah uu maamulka degmada Ceelafweyn ku wareejiyo maanta oo meelihii ugu daran la gaarsiiyo
aad iyo aad baanu agaasima ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay jazaaka allahu alkhayr aljazaa waanu kaa guddoonay agaasime deeqda biyaha aadna soo gaadhsiisay dee wax weyn ka tari mayso deegaanka laakiin waxaan leenahay dadku ha ku daydaan oo dawladdu ha ku dayato oo dadka qurba joogga ah ee degmada Ceelafweyn iyo hareeraheedu u dhashay ha ku daydaan waana kaaga mahad celinaynaa biyaha dhowr iyo 30 kaayad adigu khaasatan u bixisay ku mahadsan tahay mushaharkaagii inaad dadkaagii aad la dareen tahay aad halkaa ugu soo kicintay aad ku soo martay jiidde oo dhanna aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa dadka muxsiniinta ah ee reer Ceelafweyn ee ha joogaan qurba joog ama dalka ha joogaan quljoog ha noqdaan iyagana waxaan ka codsanaynaa dadkooda inay la dareen noqdaano waxay ku tari karayaan sida agaasimuhu ugu taray in iyaguna ugu taraan maaha bilowgii wax dambana waan ku sugeynaa isaga iyo inta la mid kaba ah tanna waa mid horumarina maadaama uu soo maray jiida dheer iyo wadanka bari iyo xag kasta wajahooyinka Ceelafweyn uu soo arkay ayay ka dhalatay inuu isagu jeebkiisa ka sii bixiyo dabeedna qaydhaana u jeediyo waxaa taa hadda la mid Ilaahay mahadis la maantaba in booyadihii taagan yihiin oo la kala dirayo oo goobihii u kala baxayaan agaasime waa 6 iyo 30 booyadood weeyaan tirada markaan isu geeyay waxay sida u gaadhaan loo gaarsiin doonaa mid laba hesha iyo mid hesha insha Allah taaka waxaan ugu dhalatay maadaama aanu dhulkaanu shalay soo aragnay biyo la'aan baahan ay ka jirto oo liidata inaan si shakhsi ah aan uga qayb qaadano contribution-ka dadka la gashanayo maadaama aan ka mid ahay oo maanta Ilaahay iga dhigay madaxda deegaankan iyo deegaanada ku joogta bari haday noqoto maxaa la yiraahdaa koonfurta iyo bariga iyo waqooyiga iyo galbeedka waa degmada Ceelafweyn afarteeda hareerood runtii dhibaatadaas way ka jirtaa marka waxa yar biyaha aanu soo helay waxaan jecelahay inaad u qaybisaan maanta idinku wareejino haddii Ilaahay gaarsiisaan siday u gaarayaan oo kala jilicsan yihiin idinka kala garanaya idinka xogtooda haya laakiin dhowr iyo 20 deegaan oo runtii duruufahaasi ay ka jiraan ayaa jira waxba kama tarayaan waxba kama aha waa bad irbad lagu dhex tuuray waxaan dareemayaa inaan waxba ka jirin laakiin waa dareen shakhsiya insha Allah bidnillaahi kariim intaasaan doonayaa maanta inaan halkan idinkana idinka wareejo